ويدي عرتا 4.5 كيدي والله 20 سنة لبدي دورشو ugu dambeysana garantoora saxiixay inay tahay markii ugu dambeysay dood ka sareysana ma noqon karto midii ahayd banki muune Cabdiweli oo ugu dambeysay dooda meel ka weyn oo la gaarsiin karaa ma jirin meeshay tagtay bayna tagtay dawladda hadda joogto ay tahay inay 4.5 qabataana ka saartaana wa xaqiiqo dalkii kama ay saareen hawshiina lama qaban waxa muuqata in aan hawshii la qaban oo aysan maanta wax kale oo diyaarsan aysan jirin inagu shir baynu qabsanay shirweyne Puntland buu ahaa kii labaad oo lagu asaasay Puntland buu ahaa waxa ka soo baxday in aysan doorashada qof iyo cad aysan suurtagal ahayn sabab badan baynuna u yeelay ha ugu weynaato midda ah in dastuuri laga dhigayo nidaamkii 4.5 ka ahaa awal political agreement-ga ahaa ee la isla hamaalin hor laga baxo waxa halka lagu raadinayay hadda in loo bedelay inuu dastuuri noqdo abadi noqdo waxay ka mid tahay sharciga doorashada taas qodobada ugu waaweyn ee ku diidnay ka mid ahayd kasoo dalka amniga iyo waxaan heshiis lagu ahayn iyo waxa soo kala jira waxa kale oo aynu soo jeedinay inaysan extension suurtagal ahayn bayna soo qaadanay option waxaynu ka dhignay gogashan aynu ku fidanay gogashan wali lagu fariisan in la isla helo qaab Soomaalidu ay ugu heshiiso qaabkay ugu gudbi lahayd halka haday taagan tahay waxa looga gudbi karaa marka waxay ahayd maxaa la isugu iman karaa 4.5 ciidana ma jecla cidii keenaysa xalayna uga baxaynana waa rajaynaynaa laakiin haddii doodu ay mar kale meeshii ku soo noqoto maxaynu samayn karaa waay reer Puntland dood inay ka yeeshaan wixii sanadkii hore la sameeyay oo wax laga bedbedelay oo expansion geographic ah iyo tirada ah iyo wixii kale la xabxabayn karay la sameeyay oo detail ah oo u baahan in laga shaqeeyo baa lagu daray oo ma nashnaasi karaa oo ah waxaan dooda la tagayno horta doodu halkaas ay ku salaysan tahay oo ay tahay reer Puntland inay tala ka qaataan halka doodo anagu aan qabo caawa loo joogay reer Puntland haddii ay tahay doodan inay serious ka noqdaan oo 12 aynu soo jeedino leena ka diiday oo la saxiixay oo 16 leena diiday oo la saxiixay oo xamar aynu tagnay oo hal guddi aynu weynay doorashada rag badan oo kamid halkaan waa ka qayb galeen miisaanka Puntland oo soo baxay 2016 miisaanka Puntland rasmiga ah baa ka soo baxay Soomaaliya zero influence baana sida Cabdiweli sheegay inta 4.5 joogana Puntland waa negligible tusaalayna ahayd miisaankeena way saragnaa ma qaadan karaa nuclear option inaynu diidno waa diidnay ma fiicna ila taasaan lahayn waxa la inoo qaatay for guaranteed way cabanayaan way diidayaan way yeelayaan taas xaqiiqada jirta nuclear option Puntland ma qaadan kartaa kadska ma leenahay muxuu yahay nuclear option على الأقل مثل فارح علي سوري جيدي oo ah hadii sanadkan ay sandicin wixii hore loogu heshiiyay anagu reer Puntland ha we are out of this process qayb kamanihin diyaar ma unahay hal wareeg inaynu ka maqnaano dadku 4.5 kood ha aadeen kuraasooda ha qaybsadeen waxa Soomaaliya aado laakiin at least politically inaan Puntland dibadda uga baxno oo ka soo baxno ha aadeen dad kuraasooda reerahooda ha iska aadeen si Soomaaliland bawaado laakiin aan ka soo baxno waa layna dhageysan markaa waa laynoo iman gobol muhiim ah nahay waxba laynoo sideyn gorgortan baan gali karaa laakiin hadii kale banki moon maanta hanoo saxiixo bari barteedii bay ku noqon ana waxaan soo jeedinayaa wax kasoo soo jeedino inaynu fallback ama nuclear option ka aynu miiska dhigno laakiin ay naga dhibtahay hogaan bay u baahan tahay madaxweynahan awoodda waa la siiyay shirweynihii Puntland baa siiyay waxay u baahan tahay caawana shirki halka waa loo joogaa waxay u baahan tahay taa in la shirto waa mahadsantihiin